mandheera horta waad ku mahadsantahay intaad xaafadaadii soo qadinto ku kala waxba iga weydiin waliba qaybta Musa Cabdullaahi di weydiisay waa dhigayso xaaji to xira qaxoonti oo si rasmiya u diiwaan gashan baa iminka waddanka ka jira imisaase temporary oo ku meel gaara macnaha dee goobo barakacyaal NDPS waxa la yiraahdo barakacyaal baa ka wada imisa barakacyaal oo waddanka xirooy oo ka jira iyo oo rasmiya iyo intaan rasmiga ahayn baa rabaa su'aasha ku weydiiyo Soomaaliland macnaha dee goobana waa ku meel gaar goobana waa in muddo shaqeynayaan Soomaaliya macnaha dhammaadkii 2021 waxa gobolka Sool laga saaray dad halka deganaa oo ay dawladdu ka saartay oo gobolada Soomaaliya ka soo jeeday dadka nabadgelyada darra lagu way dadka nabadgelyada darra lagu eedeeyay sidii la sheegay wax idin register sanaayo barakacyaala oo ku jiray miyay jireen maxaad kala socotaa insha Allah goobta NDPS-ka ee Mandheera ku taala su'aasha saddexaad dadkaasi in badan waxay ka cawdeen in aanay goob caafimaad lahayn dhowr jeerna la diiwaan galiyay in guriga loo dhisi doono bal ayadana inaad macluumaad naga siiso insha Allah taas su'aasha kale ku weydiinay waxa weeye hay'adaha dadka ajaanibka ee dalka jooga waxay diiwaan gelisay waxaanay siisaa kaar aqoonsi oo loogu aqoonsado sifada ama santuska ugu jooga dalka noocay tahay kaarka waxa saad bay u furtaa $10 bay ka qaataa ka idinku maxaa kala socotaan inta san ku soo koobi lahaa tirada kaantan kaga bilaabayaa inta dhul ay leeyihiin degan iyo inta dhul aan leeyihiin degan temporary rasmi ma kala noqonaysa ilaa wax markii hore wada rasmi wada barakacayaan in fact hadda tirada rasmiga dusha kama hayo laakiin xafiiska taalo waa naga heli doontaan waa noo kala qoran tahay waxa se badan kuwa imika dhulka ay leeyihiin degan ya badan dadkii soo laga saaray barakacyaal mid ku diiwaan gashanaayeen markaasi waa su'aal u baahan oo arrin siyaasi ah xildhibaan adan ka weydiinay dadka Soomaaliya ka yimaada ajaanib u taqaanaa mise muwaadiniin u taqaanaa ka u taqaanaa كنوبة دوان كشرنا أريتها وزارة دارمة جودا يمجريش كشغل كله ما هو حنا نقصية قحنتينو نقول دوان كشنا برك عيال مركورة ما نقبلينه أشري بانو نقنانه تسنا وطا مندرة وتوقف ما حصلت تين الحافظ هذه سوق تين توقف كلام حبيبي ويدي واللي بقيت موسى عبد الله دي ويديش واحد دقيسو حكي وتوقف ما حصلت هاي وروادرين دقيسو مندرة وماشى أقوب بدن وح أقوب بدن نقيمه مركز تو وحي مدة وأروان كاغدين يا هذا هذا كان كذي دقيس حل ديوان دقيس بليس حل ديوان هذا كذي دقيسو أتكون كلي ويديش السلعة أكتر تكون سلعة هاي مسويدين مندرة وماشى أقوب بدن وحقينه وأنا تقنين لبوا قيب سنتهاي وحول بروح على لبوا قيبية يسكت لي labada qolada siyaasadun baa loo keenay marka hore labada qolada siyaasad baa loo keenay arrin deegaan baa loo keenay mushkiladana haysatana waa barakacyaal arrin deegaan loo dijinayo laba reer oo meel isku haysta ay dadkiina yahay marka waxa soo mashaakil anaga in haysta ma jirto meel loogu ballan qaaday in guriga loo dhisay totally ayral baa loo qoday wixii la siin kara marba hay'adaha noo yimaada markii ilaa intaas aan hayno inta badan waxaan mandheerigeeyo labada meelood oo kala qaybay laba isla ugu qaybay taasina waa taa hay'adaha dadka diiwaan geliya tan lacag bay ka qaadaan warka ma hayno iyaga baa lacag siiya si lacag u qaada waxba kama jiraan warka hay'ad baa inta kaarsiiso lacag ka qaada waxba kama jiraan warkaas xildhibaan dib u hubiyo